xildhibaan halku xamay klibkan magaciisu yahay xildhibaan halku xamay wuxuu ku saabsan yahay sida xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u gabeen hawshii loo egmaday badankooduna ayanba fahamsanayn waxaa soo badanaya jahwareerka iyo gaboodfalka iyo dilka ka socda Soomaaliya oo dowladda federaalka oo dhexe ayaan waxba ka qaban karin kana qabanayn inay ku fiirsadaan haddaba xildhibaanadu arrinta iyada ah waa jariimad ay ka galayaan Soomaalida iyo mas'uuliyadii loo dhiibtay oo lagu aaminay waxa iyaduna meesha ka baxday jaangooyadii iyo hiigsigii waddanka lagu nabadayn lahaa ilaa ay gaadhay in dawlad goboleedyadii ay ka aamin baxaan dawladda dhexena ay awoodi weyday inay hanato midayntii Soomaaliya dawladdan hadda jirta oo Soomaaliya waxaa doortay baarlamaanka xukuumadeeda waxa ansixiyay baarlamaanka haddii hawshii ay gabeen inay ku daba galaan oo ay gacanta ku dhigaan sidii loo sixi lahaa majarahabowgaas iyagay saaranta xildhibaano ka baroor diiqaya falalkii u dambeeyay oo dhacay sida dilitaankii sida xun loo dilay Axmed Dawlo oo noqotay bar madow oo ku taala damiirka Soomaalinimada xildhibaanada iyaga meeshay wax ka qaban lahaayeen oo oran lahaayeen dawladdu waa inay ka jawaabtaa mooshin ka keeni lahaayeen meesha ka saari lahaayeen waxay taladoodii dhaafi weyday aynu $100 mushaarka uga jaro familigii dhibaatadu gaadhay hadalkooda iyo ficilkoodu waa astaan u taagan xilkasnimo xumada iyo dadqalnimada baarlamaanka iyo dawladda ay doorteen maadaama ay ku mushaar qaadanayaan dhibka xasuuqa iyo gaboodfalka bulshada Soomaaliyeed caymana ay ku dayilayihiin